shan iyo labaatankii bishii saddexaad 2024 sirdoonka Turkiga ayaa fuliyay howlgalkii sirdoon ee ugu muhiimsanaa taariikhda Turkiga. Howlgalkan oo lagu qabtay 7 qof oo mid ka mid ah aan marna laga filaynin inuu cadow basaas u ahaa. Qofkan aynu ka hadlayno wuxuu hayay xil muhiim ah oo aad khatartiisu leh. mar walba wuxuu ka soo muuqan jiray warbaahinta Turkiga isagoo ka hadli jiray wadaniyada khatarta cadowga isida joogitaankiisu khatar ugu yahay guud ahaan gobolka. goob kasta oo shir ama kulan lagu qabto wuxuu taageeri jiray qadiyadda Falastiin, wuxuuna ahaa qofka ugu horeeya oo ka soo muuqda halkaasi ilaa lagu sharfay oo loo bixiyay magaca ilaaliyaha iska caabinta. la yaabka ugu weyn ayaa in qofka laftigiisu uu maamulayay shabakad sirdoon oo lagu dhaxmilay dhammaan hay'adaha dawliga. haddaba waxay isweydiin mudan inaynu ogaano sidee buu qofkan aad ku caqliga badan ugu gudbay difaacyada hay'adaha sirdoonka, yuu yahay isagu, sidee baa loo shaqaalaysiiyey, iyo su'aasha ugu muhiimsan oo ah sidee baa lagu ogaaday oo lagu qabtay qaayinkan. 15 bisha Luulyo 2016 waxaa Turkiga ka dhacay iskuday afgembi oo fashilmay kaasoo ka dhan ahaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. run ahaantii ma geli doono faahfaahinta dhacdadaasi, balse waxaa la oran karaa afgembigaasi wuxuu ku fashilmay mucjiso rabbaani ah maadaama qorshuhu ahaa mid seher sare loo soo diyaariyey oo la rabay in saacado gudahood Erdogan meesha looga saaro taladana lagu wareejiyay ciidanka. salama filaan ah ayay arrintu isku bedeshay. Erdogan wuxuu soo laabtay isagoo ka xoog badan sidiisa hore, wuxuuna helay marmarsiyo uu ku ciribtiro dhammaan mucaaradkiisa. kooxda abaabusha afgembiga waxay ahayd kooxda uu hogaaminayay Fethullah Gulen. Erdogan dhowr bilood gudahood ayuu ku nadiifiyey dhammaan taageerayaashooda, wuxuuna ku xukumay xabsi iyo dil 10 qof ah. sanadkii 2019 xukuumadda Turkiga waxay go'aansatay inay shaqada ka erido taliyaha booliiska ee gobolka Güngören oo lagu magacaabi jiray Hamza Turhan Aybek, iyada oo lagu tuumayay inuu xiriir la leeyahay kooxda Gulen. sida ay sheegeen warbixinada wax cadeymaa looma helin, mana uusan ahayn xubin ka tirsan kooxda, balse fikirka Gulen ayuu aad u jeclaa. marar badan wuxuu diiday go'aanada dawladda, inkastoo laga eriyay shaqada xabsi lama gelin, loomana eriyin si sharaf darro ah, balse si sharci ah ayaa loo fasaxay. mushaarkiisa gunadiisa ayuuna sii watay isagoo howlgab ah. 4 bilood kadib akoon Facebook oo been abuur ah ayaa la soo xiriiray kaasoo lagu magacaabo Victoria, waxayna ka codsatay inuu siiyo walletkiisa ama boorsidiisa lacagaha dijitaalka, iyadoo u ballan qaaday inay hadiyad u diri doonto. Hamza hore umuusan lahayn walletka lacagahaasi, balse xiisaha uu qabay sirdoonka awgiis wuu aqbalay codsiga, wuxuuna samaystay boorso dijitaal ah, wuxuuna u diray koodhka. muddo 20 daqiiqo gudahood Victoria waxay u dirtay Bitcoin qiimihiisu yahay $40,000. Hamza markii uu helay markii hore wuxuu u qaatay khiyaano, balse markii uu $5,000 uu ka soo saaray boorsada wuxuu ku qancay inay lacagtu tahay mid dhab ah. Victoria ayaa ku casuumtay inuu kula kulmo darjiin dadweyne. markii uu yimid darjiinka qofna ma aysan joogin, balse wuxuu helay bashqadu waxa ku jiray tigidh dalxiis oo lacagtiisa hore loo bixiyey, kaasoo ku tagay Greece, halkaas oo ku arkay Victoria. dhab ahaantii Victoria ma aysan ahayn qof dumar ah, balse waxay ahayd 3 nin dhammaantood oo ahaa saraakiil ka tirsan sirdoonka cadowga ee Mossad. waxay tusiyeen lacag dhan $40,000, waxayna ku yiraahdeen haddii aad nala shaqayso waxaynu ku sii doonaa lacagtaas laab in ka badan. kadib wada hadal qaatay 4 saacadood, Hamza wuxuu aqbalay inuu la shaqeeyo Mossad, isla markiiba waxay u wareejiyeen $100,000. Mossad ninkan waxay ku qiimeynayeen inuu yahay sirdoon diyaar ah oo tababar heer sare ah ka soo qaatay hay'adaha sirdoonka Turkiga, isla markaana soo qabtay xilka taliyaha amniga, iyo in ay jirto nacayb qarsoon oo uu hayo dawladda Erdogan. Hamza wuxuu tababar 7 ku qaatay Greece, kadibna wuxuu u soo laabtay Turkiga si uu u bilaabo howlaha. shaqadiisa dhabta ah, wuxuu isu muujiyey inuu yahay nin ka soo horjeeda gumeystaha oo u ololay qadiyadda Falastiin, wuxuuna asaasay urur lagu magacaabo Ururka Carruurta Dhulka oo ku soo ururiyay taageerayaal fara badan. Mossad ayaa u fududeysay inuu ka soo muuqdo warbaahinta isagoo loo aqoonsaday qabiir amni. muuqaalkiisa iyo hadalladiisa waxay ahaayeen kuwo olole ka dhan ah gumeystaha, taas oo ka dhigtay haliyey dadweyne. wuxuu shaqaaleysiiyey koox maamusha baraha bulshada, wuxuuna bilaabay inuu shaqaaleysiiyo saraakiil badan oo ka tirsan hay'adaha amniga ee Turkiga. intii lagu guda jiray 4 sano wuxuu ku guuleystay inuu ka dhex dhiso shabakad ka koobneed 100 qof oo xogtooda si joogto ah ugu gudbin jiray Victoria. ha yeeshee wuxuusan ogeyn in tan iyo 2022 sirdoonka Turkiga oo si buuxda ula socday dhaqdhaqaaqiisa, indhahana ku hayay, isla markaana 239 qof oo ka mid ah 245 qof oo uu shaqaaleysiiyey inay ahaayeen basaasiin laba kaarlayaal ah oo u shaqeynaya dawladda Turkiga. ujeedadan ahayd in la ogaado halka ay gaarsiisantahay qiyaamadiisa. ugu dambeyntii Hamza wuxuu ku dhacay qadka cas kadib markii uu ku lug yeeshay faafinta qorshe safar qarsoodi ah oo uu lahaa madaxweyne Erdogan. dawladda Turkiga waxay bilowday howlgal lagu qabtay isaga iyo 6 ka mid ah shabakadiisa, waxaana lagu magacaabay howlgalkaas howlgalka xamaaratada 2. xukuumadda Turkiga waxay u isticmaashay qabashadiisa 2 ujeedo: inay adduunka u muujiso awood ay u leeyihiin inay ka adkaato basaasiinta heerkiisa ah, iyo inay si dadban fariin ugu dirto Mossad una sheegtay inay og yihiin wax walba tan iyo bilowgii. sheekadan Hamza waxay muujisay sida dagaalka sirdoonka ugu badan yihiin xeelado, khiyaano, ujeedooyin qarsoon iyo ciyaarta istiraatiijiga ee labada dhinac oo midba midka kale kula dagaalamayaan. inkasta oo la xiray, haddana su'aalaha taagan ayaa ah imise Hamza oo kale ayaa maanta isu muujinaysa wadaniyiin balse dhab ahaantii u shaqeeya cadowga. Soomaaliya markaynu ka hadlayno,
حمزة ملاها وحو قاري كرا بقول قفوت مقال كحيقة إن شاء الله وحين كوغا دونا تباها سردونك يسودو وشقيان وحان كعصاني هذا مان لان يراد داوة مقال كان فافيان لكن شر نودهان واللي بنقو صبيران اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه في أمان الله.